بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kusoo dhowaada casharkii tobnaad ee kitaabkii safiinaha waxaan ka soo sheekaynay casharkii sagaalaad faatixada shuruuddeeda shidadkeeda meelaha oo gacnaha kor loo qaado ay sunnada tahay sujuudda shuruuddeeda sujuudda shuruuddeedii aan weli kusii jirnaa waxaan soo niri 7 xibnood qofku inuu ka sujuudo wey waana sheegi doona 7 yihiin waxaan soo sheegnay wejiga qofka intaas dhulka la dhigaya inay faydantoo bannaantaa la rabaa inuu wejiga dhulka saaro ee uusa taabsiin kaliyaha la rabaa waxaa kaloo niri wacadamul huwiyi ligayri halkaasaan ku istaagnay sujuudda waxaa ahayn qofku inuusan usoo dhicin wey marka hore usoo hooban oo waxa weeye qofkii markuu soo fariisto asagoo fadhiyo maalanba sujuuddii labaad kasoo toosay isagoo fadhiyo haddii qof jug siiyo ee uus yihahdo awalba sii sujuudi laheeda aad ama maahana asagoo taagan oo soo tooso ataxiyaadkii rukuuca kasoo toosoo taagan haddii jug la siiyo yidhaahdo awalba sujuuda aadi laheeda aad ma anfacayso waa in marka hore aad ku talagal sujuud kaliya usoo aadaa waayahay wa an laa yasjuda ruuxi waa inuusan sujuudin calaa shay-in wax yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya markii uu sujuudayo waxay leeyihiin waxaa shardiya in uusan ku sujuudin shay dhaqdhaqaaqiisa la dhaqaaqaya maalanba koofidii oo wejiga kuu soo gasha xijaabkii oo wejiga macnaha intaan soo gasha cimaamadii darafkeedoo kuu gasha ee wejiga isku aadisa maaragtay waxaasoo dhan lama ogola haddii shaygu uu shay gooni u soocan yahay maalanba waxaa haysataa fistileti waxaad meeshii aad ku sujuudaysaa maaragtay adugu waxun oga baqaysaa ama samboor ama kulayl ama aad gacanta ku haysatid oo dhigatid markii aad sujuudaysid ee aad hadhow kor u qaadatid dhib ma leh laakiin shayga kula xiriira cimaamada oo kula xiriirta ee aad madaxa kuu saaran iyo xijaabkii gabadha darafkiisa inta dhigato qofku kuma dul sujuudi karo sujuudduna ma ansaxayso wairtifaacu asaafilihi ruuxa qaybihiisa hoose inay kor maraan weeye calaa acaaliyihi qaybihiisa sareeya inay ka kor maraan oo waxa weeye hadda markaa caadi tahoo fadhisid ama socotid garbahaagii iyo madaxaagiia koreeya laakiin markaa sujuudid waxaa la rabaa sinihii inay kor maraan haddii aad sinaatid oo aad caloosha dhulka inta ku dhejisid garbihii iyo sinahaagii ay sinmaan markaa sujuudsantao wejiga dhul ku haysid sujuuddaasi ma ansixin watuma'niinatu xasilooni ayaa shardiya fiihi sujuudda lagu xasilo waa inaad sujuudda markaa wejiga dhulka dhigtid aad ku xasishaa ee aadan inta taabsiisid aadan la soo boodin xasiloonida waa u tegi doonaa ugu yaraan subxaana allah intii leedaha waa inay tahay khaatimatun tani waxay khatimaysaa oo dhammaystiraysaa sujuuddii acdaau sujuudi xibnaha 7 ihi 7 xibnaha sujuuddu 7 wey 7 xibnood waa inuu ka sujuudahan soo marnay waana 7dii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam umirtu an asjuda calaa 7 acdum waxaa la ifaray oo ilaahay ma amray inaan 7 xibnood ka sujuudo tan koobaad aljabhatu wejidi wey waa intaas weji waxaa leedaha markaan jabhada sujuudda haddii la joogo intaas sacabka la saarayo foolkaas tan labaad wa butuunu asaabici lkafayni labada calaacalood farahooda yacni gudahooda wey oo waxa weeye calaacalahaas al rabaa dhulka inaad dhigtid shardi maaha calaacasha dhan dhulka inaad dhigtid ee qayb ka mid ah inaad dhulka dhigtid wey haddaad kulligood dhigtid waa fiican tahay haddaa meeshu ciriiri kugu noqoto lagu ciriiriyo qayb ka mida dhigtid soka wey waxaa meeshaas baraaruji mudan dadka qayb ka mida markii ay qur-aanka akhrisanayaan sujuudu tilaawa ku imaanaysa horta sujuudu tilaawo sujuudda akhriska qur-aanka wey haddaadan salaad ku jirin kow waxaa la rabaa inaad xiratid allahu akbar tiraahdid haddana waxaa laga rabaa inaad sujuudid wejiga dhulka dhigtid markaa wejiga dhulka dhigtid waa ina xibnihii ka sujuudda qofka dadka qayb ka mida ayagoo qur-aankii gacanta ku haysta oo saan qur-aankii gacanta ugu haysta uu sujuuda markaasuu calaacasha gacantan tan dhulku dhigaa tanna qur-aan ku haysta dhinaceedaasu dhulka ka dhigaa sujuuddaasi ma jirto waa inaad markaad sujuud qur-aanka akrinaysid sujuud aad la dhacdid waa inaad gacnihii caadi dhulka u dhigtaa kitaabka inta meel saaratid kabacdi markaa kasoo toostidna salaam marka 4 shardi leeda sujuuddaasi qur-aanka akhriska
haddaadan salaad ku dhex jirin qur-aanka adoo iska akhrisanaya kugu timaado kow sujuud inaad niyeysatid, 2 inaad xiratid oo allahu akbar tiraahdid, 3 inaad sujuudid, 4 inaad ka salaamo naqsatid markaa soo toostid. sujuuddana shuruudeeda inaad ilaalisid wey. warukbataani labada jilibna ruuxu waa inuu dhulka dhigaa, haddii uu caafimaad qaba ruuxi jilbaha dhulka inuu dhigo wey. wa butuunu asaabici alqadamayni labada lugood asaabici rijlayni labada lugood farahooda gudahooda dhulka inuu dhigo wey. oo farihii lugaha dadka qayb ka mid ah waa sii u dhigaan. waxaa la rabaa faraha cadcada lugta inaad saas yani u rogtid oo dhulka u dhigtid, kulli inaad rogtid qasamaan xataa suulka kaliya hadduu saa kuugu yaalo waxa weeye oo dhulkii gacanta dhulkan kasoo wada saa hadduu suulka qayb kuugu taallo oo suulka kaliya ha atee waa okay. maxaa la diidayaa tan dhulkii hadda ka wadnaa masalan si loogu jeedi karo, haddaad ka waran lugaha markaad sujuudaysid aad farihii saa u rogtid oo farihii lugaha saa u gembisid, ama aad foodooda saa u taagtid, ama dadka qayb ka mida ayba lugihii kor uga hayaanoo saa ay dhulka uga celinayaan, waxaasoo dhan sujuud ma ansacayso. farahaas calaacalo gudahooda waa inaad dhulka saa u dhigtaa kulligood, ama qayb ka mida xataa suulka kaliya ha ahaatee, ilaa qofku inuu jiranya maahan oo lugtaba dhulka uusa taabsii karin taas dhib male, laakiin haddii kale waa inaad dhulka dhigtaa. faslun fasalkan waxaan uga waramaynaa shidadka ataxiyaadka. tashdiidatu tashahudi ataxiyaadka shidadkiisu 21 waa 21 shid wey waayahay 21 shid wey. 5 zaa'idatun waa dheeraad fii akmalihi ataxiyaadka sida ugu kaamilsan markii lagu akhriyay dheeraad ku tahay markaasaa sida kaamilka la timaadid. wa 16 16 fii aqalihi ataxiyaadka inta ugu yar ay ku jirtaa, marka intaas ugu yar waa inaadan ka tegin. inta ugu yar haddaa ka tegtid hadda salaadii eber weye ataxiyaadkaagii eberaba waa inaad kusoo celidid. laakiin markaa sida fadliga badan rabtid la imaanaysaa 5 dheeraadka ah oo aad gaarsiinaysaa 21 meelaha ay ku jiraanana laga tagaa markaas macnaheedu ka dhiganta. attaxiyaatu shidkeedu cala taa'itaada korkeeda ayuu ahaaday iyo walya atta waa inaad tiraa atta taadaas weye iyo ya-da oo xiyaatudaas marka attaxiyaatu maahan attaxyaatu dadka saasay akhriyaan qayb ka mid a attaxiyaatu weye attaxiyaatuna maahan taada waa inaa shidaa attaxiyaatu saa waa inaa iskaga saxdid. almubaarakaatu asalawaatu shidkeedu almubaarakaat shid ma leh asalawaat a shid leh cala saadi saadka korkiisa ayuu ahaaday asalawaat maxaa la diidaa asalawaatu inaa iska tiraahdo. attayibaatu shidkeedu cala taa'i ta'da korkeeda ayuu ahaaday oo atta ah iyo walya ya-da korkeeda oo yi-da attayi taas wey. lilaahi shidkeedu calaa laamil jalaalati jalaalada laamkeeda korkeeda laamka allaahi waa ka saaran. assalaamu shidkeedu cala siini siinka korkiisu ahaaday assalaamu kaliya la diidaya. salaamunna waa la ogol yahay assalaamuna waa la ogol yahay laakiin assalaamu xataa dadku markay issalaamayaan salaamu calaykum ay yidhahan salaamu calaykum taas salaam ma ahan. laba maadamida lagaa rabaa inaad shidid oo assalaamu calaykum tiraahdid iyo inaad asha inta tuurtid 2 god saartid oo salaamun calaykum labadu waa soo arorin laakiin salaamu calaykum ma soo aroorin. assalaama calaykumna ma ah. assalaamu shidkeedu cala siini siinka korkiisu ahaaday. calayka ayuha nabiyu shidkeeduna calal ya-da korkeeda oo ayu wey ayu iyo wanuuni nuunka korkiisoo annabiyu nuunkaas iyo walya ya-da korkeeda annabiyu ya-daas korkeeda wey. waraxmatullaahi shidkeedu calaa laamil jalaalati allahi dalaamkeeda waa ku jira. wa barakaatuhu salaamu shidkeedu cala siini siinka korkiisa ayuu ahaaday. calaynaa wa calaa cibaadillaah shidkeedu calaa laamil jalaalati allahida waa ka ku jira. assaalixiina shidkeedu cala saadi saadka korkiisa ayuu ahaaday. assaa saadkaas wey. ashhadu an laa ilaaha shidkeedu calaa laami alifin oo allah allah waa ka laami alifka ku jira meeshaas. marka waxaa muhiim ah dad fara badan shidkaas ma akhriyaan ashhadu an laa ilaaha yiraan lama ogola. dadka aadaamaya qayb fara badana markay aadaamayaan ashhadu an laa ilaaha leh shidkii meesha waa ka baxaya nuunka haddaa muujisid
marka haddaa ataxiyaadka akrinaysid allaa ilaah waa inaad tidhaahdid oo aad nuunka qarisid laamkana shidid allaa ilaaha ila allah. haddaad aadaamaysid allaa ilaaha, laakiin dadku maba aaba yeelaanba oo xataa dadka aadaama inta badan inay bartaan diinba maba ku fakaraan. qayb badan waxa weye hadduu mu'adin noqday shiikh dhammaystiran wey, waxbana lagama sixi karo. markaasaa arkaysaa 10 qodobo aadaankii ka mida oo ruuxu jebinayo. aadaankuna waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. ha ogaadin qof xadiidkii nabiga akrinaya haddaad marka qaladid waxa weye nabigaad ku been abuuranaysa calayhi salaatu wasalaam. iska ilaali marka salaada markaad tukanaysidna allaa ilaaha inaad tirahdo wey. an laa ilaaha waa la ogola. ila allahu shidkeedu calaa laami alifin oo ilaada ah iyo walaami aljalaalati oo allahu shidkeedu korkeedu saaran yahay. wa ashhadu anna shidkeedu cala nuuni nuunka korkiisu ahaado. wa ashhadu anna maahan anna wey. muxamadan rasuulullah calaa miimi muxamedu saray oo muxamed miinkaa labaad. wa cala raa'i oo rasuulullahi muxamadan rasuulullahi malale waxaa la rabaa muxamadan rasuulullahi. haddaa ataxiyaadkan akhrisid kan muxamadan cabduhu wa rasuulu aad akhrin rasuulullahi akhrisid waa inaad shidid muxamadan rasuulullah. waa yahay waa inaa akhrisid muxamadan rasuulullah. marka wa cala raa'i ra'daas waa inaa shidid. wa calaa laamil jalaalati oo allah ah. marka meeshan waxaan rabnaa inaan wax yar baraarujino. ataxiyaadka waa muhim. qofku sida faatixada uu u barto ayaa la rabaa ataxiyaadka inuu barto. faatixada sida ay tahay waajib inaa iska saxdid ayaa la rabaa ataxiyaadka inaa iskaga saxdid. haddaad faatixada aada ataxiyaadka iska sixin salaadada everyway. dad waaweyn aa jiro oo waalidiin ah oo aan ataxiyaadka suu xoog la uga jajaban yahay aanan kala jeclayn inay bartaan. qayb ka mid hadii laga six tago maana intaan la egaa faatixada salaada hadda iga saxsaxaysa ay leeyihin. laakiin qofka muuminka ah oo aan isla weynanku ku jirin kama kibri in laga saxo. marka ataxiyaadka sida qur-aanka inaan u barano awaajiba si salaadeena sax u noqoto. markaasa xadiidka saxiixa ahaa ee saxiixu muslim ku yaalay cabdullahi bnu cabaas wuxuu leh allah ka rali noqdo. kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam yucallimuna atashahuda kamaa yucallimuna asuurata min alqur'aan. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ataxiyaadka noo bari jiray sida suurad qur'aanka ah uu noo baro. u fiirso, suurad qur'aanka ah siduu noo baro ayuu noo bari jiray. markaasuu cabdullahi bnu cabaas ataxiyaadkii akhriyo oo yihi fakaana yaquul, nabigu wuxuu dhihi jiray attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alطayibaatu lilah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. intaasuu akhriyay. waa xadiidkaasi saxiixu muslim kan ku yaala wey. marka ataxiyaadka saas inaa u baratid wey. waxaa muhima marka ataxiyaadka qaabo badan ilaa 3 qaab gaaraya aa nabiga calayhi salaatu wasalaam looga wareeri. ataxiyaadkan waa ataxiyaadka madhabka shaaficiyada uu qaatay ee saxiixu muslim ku yaala oo cabdullaahi bnu cabaas uu leeyahay ee nabigeena adeerkiisa saxaabiya nabigu sidii suuraddu noo baray. waxayna shaaficiyadu xadiidka ataxiyaadkan u qaateen waa ugu dhammaystiran yahay. almubaarakaatna waa ku jira oo waxay leeyihiin lafdigaas taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan tayiba iyo cabdullahi bnu cabaas oo ka dambeeyey asxaabi kale cabdullahi bnu mascuud. marka calaa kulli xaal ataxiyaad saxa soo arooray weye. qofkii yaqaanana ha akhriyo. waxaa kaloo jira dhowr ataxiyaad oo kaloo sheegi doona. maanta dhibaatada jirta qof ayaa hal ataxiyaad baranaya. midkaas uu bartay ma ahana mid kale haddii uu ku arko qof akhrinaya bidci weeye. qofkii kan yaqaanaahi qofka ataxiyaad kaloo sax akhrinayo kuma bidcaysay karo. waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. qofkii midka kale yaqaanana kan kale qofka yaqaana kuma bidcaysay karo. gaar ahaan waxaa ugu daran macalimiinta dugsiyada. waxaa hadda ka hor macalin u yimid gabar yaroo arday ah. markaasuu yihi tarbiyada islaamka lagu dhigaya iyo qur-aanka. waxay tihi macalinow ii dhig tarbiyada qur-aanka ii dhig laakiin tarbiya horta hay maqashiin. maxaa dhacay tiri gaar ahaan ataxiyaad hay maqashiin. waxay tihi waxaan u tagay macalin qur-aan. markaan u tagay ataxiyaadkii u baray. markii ayaan dugsiga dhigtay dugsiga waa layga bixiyo dugsi kalea la egeeyey sida soomaalidu yaqaanaan. kii kale markii la egeeyey macalin kale wuxuu yihi ataxiyaadka akhri. waa akhriyey. waxba kama jiraan yihi waxaad sheegi sida midkaan akhri mid kale u baray. ayaan markaan la joogay mid kalean u tagay macalin kale dugsi kale la egeeyey.
wuxuu yidhi akhri kii hore kii kaloo asna yidhi waxba kama jiraan midkaan baro marka waxay tiri atixiyaadka waa ku wareeraya horta haba igu sheegin u fiirso marka waxaa keenaya macalimiintaas jahli badanahaya qofku hadduu atixiyaadyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam mid ka mida yaqaano waa loo daaya waa loo saxa kaasaa loo saxaa si saxa inuu akhriyo atixiyaadkan madhabka shaaficiyada qaata waxaa kaloo jira atixiyaadka uu qaatay madhabka xanafiyada oo asna xadiid bukhaari iyo muslim ah aan akhrinayna oo hadda dad badan oo soomaalida akhristaan waa sax asna waxa weye waa attaxiyaatu lilah waasalawaatu waatayibaat intaas ku kala bedelan yihiin iyo meesha u dambayda attaxiyaatu lilah waasalawaatu waatayibaat wee kan kii kaloo aan soo akhrinan muxuu ahaa attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu atayibaatu lilah okay inta kale waa iskaga mid assalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalى cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah intaas waa iskaga mid maxay gadaalna ku kala bedelan yihiin kan oo haroon soo akrinoo shaaficiyadu qaadatay wa ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah kanna wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh haddaad marka wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu kan ay ku jirto akhrisid si saxa u akhrisid kii horoo aan naqaanay ee aan soo qaadanay haddaa akhrisid mid kasta oo aad akhrisid waa sax imaamu nawowi iyo madhabkeena aimada dhan waxay leeyihiin wa kulluhaa mujzi'atun yata'addaa biha alkamaal ataxiyaad kasta oo ataxiyaadyadan ka mid a waa kugu ansaxaysaa salaada ha waa kugu ansaxaysaa laakiin kaasa shaaficiyadu ay akhriyaan oo kutubtooda si gooni usii doorteen midka kale waxaa jira maalikiyadu qaadatay oo imaamu shaafici xataa uu ku warinaya kitaabkiisa waa midkii imaamu sayidina cumar bn khadaab uu mimbarka ka akhriyay oo ahaa attaxiyaatu lilahi zakiyaatu lilah ayibaatu asalawaatu lilah inta kale waa iskaga mid assalaamu calayka ayuha الnabiyu wraxmat اllahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalى cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh kulli marka atixiyaadyadaas kii aa akhrisid ee si saxa u akhrisid salaadaadu sax wey qofkii mid ka mida yaqaanana ha la cayrin ha ku bidcaysiin axaadiidtii rasuulka ee sax u akhrinaya marka soomaaliyay fahamkeenna yar ee diinta aanan fahamsanayn axaadiidtii rasuulka xataa isku bidcisanan waxa le kan attaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu atayibaatu akhriya bidci wey kan wuxuu akhrina attaxiyaatu lilaahi waa bidci midba mid kale fahamkii aan jirin marka atixiyaad saxa laakiin kii uu qofku yaqaano waa inuu si saxa u akhriyaa qof mid barta hadduu kuu yimaado kaas ka sax inuu erayadiisii iyo shidadkiisii si saxa u akhrinayo laakiin ha ka burin ha ka cayrin ha ku dhibin taas marka madhabkeenna waa qaba atixiyaadyada dhan mid ka akhrisidba kugu ansaxaysa kan laakiin ay dadku barteen qofkii barta kaas alxamdulilah kii kale qofkii barta alxamdulilah kulli waa axaadiidu rasuuli llahi moxamed sala allahu alayh wasalam waayahay hadda waxaan gelaynaa saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka bacdi la akhriyo faslun tashdiidaatu aqali salaati salli kan ugu yar cala nabiyi nabiga lagu saliyo sala allahu alayh wasalam nabiga korkiisa lagu saliyo shidadka uu leeyahay saliga nabigu inta ugu yar 4 wey 4 shiduu leeyahay kow allaahumma shidkeedu cala laami laamka korkiisa oo allah ah iyo walmimi min korkiisa oo ma'daas allaahumma uu ku yaala salli shidkeedu cala laami laam korkiisu ahda salli calaa muxamadin shidkeedu cala lmimi min korkiisu ahda muxamed minka dambe intaas weye saddexaas marka ataxiyaadka markaa akhrisid ka bacdi salliga nebigaa sunna ah weliba ataxiyaadka hore ee sunnada ah allahuma inaadan aalka kusii darinaa sunna ah laakiin ataxiyaadka dambe inaa maca aal ku dartida sunna ah marka haddaad salligii nebiga taqaanid ee dheeraa ibraahimiyadii waa kan ugu fadli badan allahuma salli calى muxamadi wcalى ali muxamed kama salayta calى ibrahima wcalى ali ibrahima inaka xamiidu majiid wbaarik calى muxamadi wcalى ali muxamed kama baarakta calى ibrahima wcalى ali ibrahima inaka xamiidu majiid oo qaabo badan oo kala duwan usoo arooray wax badan oo kala duwan usoo arooray mid ka mid haddaad taqaandeed ibraahimiyadii akhri haddaada aqoon ee aad allahuma salli calى muxamed kusoo gaabsatay waa ku ansaxay salaadii haddaad marka aalkii markii dambe oo atixiyaadkii dambe allahuma salli calى muxamedin wa aalihi wasaxbihi wasalim wacalى aalihi wasaxbihi wasalim si kasta oo akhridid ku darsatid salaaddii waa ku ansaxtay lakiin salliga nabiga haka tegin salaamtiyaa soo hartay wa aqalu salaami salaam waxaa ugu yar assalaamu calaykum
oo siinka ayadana cala siini siin korkiisa shid u ahaado assalaamu calaykum marka salaamta shidka waa inaa la timaado assalaamu calaykum salaamu calaykum haddaad tiraa salaamu calaykum iyo dad kale assalaamu calaykum idhaha arkaysaa salaadii dhexdeeda marka assalaamu calaykum haddaad tiraahdid waa kaa dhaca waajibkii laakiin waraxmatullaahi inaad ku dartid waa sunno midig inaad fiirisid waa sunno salaamta labaadi waa sunno bidix inaad fiirisidna waa sunno wey kulli sunnooyin wey in sha allahu tacaala ataxiyaadkii iyo salligii ka dambe intaasaan ku dhammaynay hadda waxaan gelaynaa waqtiyada salaada insha